بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هابون داودي الميلك سو joogtaan gusoo dhawaada falanqayn kooban inuu ku dul istaagi doono safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo galabta ku tagay magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo sidoo kale waxyaabaha la filayo in maalinimada bariya ilaa caawa uu ka ololo madaxweynuhu haddaba daawade haddii ay ku tahay markii ugu horeysay ee bartan ama channelkan aad kusoo biirto waxaanu ka codsanaynaa subscribe saarto intaasi kadib madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa galabta safar nabadeed waxa uu ku tagay magaalada Cerigabo madaxweynaha oo gooshaala oo cadhuwan ayaa ka degay airportka magaalada Cerigabo waxaana madaxweynaha ku helinayay safarkiisan ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi ugaas Rooble Ugaastoodi haddaba safarka madaxweynaha Soomaaliland ayaa inuu halkaasi ka dhaqaajiyo gogasha nabadda ee uu hore u dhigay magaalada Cerigabo sidoo kale Cerigabo waxa saaka soo gaadhay Suldaan Cabdisalaan Suldaan Cali Shiro oo kamid ah salaadiinta waaweyn ee gobolada bari ee Soomaaliland sidoo kalena suldaanka guud ee beelaha loo yaqaan Hartiga caawa waa laga yaabaa inay sarkaan madaxweynaha iyo suldaanku waxay ka wada hadli doonaan nabadda iyo sida xal waara loogu heli lahaa xaaladii halkaasi ka taagneed sidoo kale arinta suldaanku waxay furdaamin doontaa arrimo badan oo halkaasi ka jiray iyadoo xaaladda nabadda ee magaalada Cerigabo ay si weyn u sugan tahay amnigeedu guud ahaanba madaxweynuhu waxa halkaasi iyagu ku soo dhaweeyay madax dhaqameed kala duwan oo runtii reer Soomaaliland ha kuwaas oo waxyaabaha laga xusi karo ay kamid ahaayeen in madax dhaqameedka halkaasi ay joogay ay ka soo jeedeen gobolada galbeedka Soomaaliland badankoodu oo iyagu halkaasi u tagay xaaladda nabadda maalmihii ugu dambeeyay qaar ay ku sugnaayeen qaar ay shilay tageen qaar marka safarka runtii waxa laga dareemayaa inuu yahay safar madaxweynaha Soomaaliland oo bulshadii reer Soomaaliland min bari ilaa galbeed meesha isku keenay si bal xal waara loo gaadho ummadda reer Sanaagna ay nabad ugu wada noolaadaan waxyaabaha cajiibka ee soo jiidashada la waxa kamid ah يعني in bulshadu halkaasi ama reer Cerigabo ahaadaan ama dadkii tagayba ahaadaan ay dhamaantood يعني nabadda Cerigabo inay bulshada dan u tahay la wada dareemayo oo qof ka soo horjeeda uusan jirin oo madaxweynaha markaad eegto si loo soo dhaweeyay iyo sidoo halkaasi ku tagay iyo sida loo sugay oo runtii aad oran kartaba يعني madaxweynaha waa la sugi karaa bulshadu يعني inuu halkaasi tago waa la sugi karaa maalmihii ugu dambeeyayna bulshada goormo madaxweynuhu imanaya goormo maanta markuu yimidna yani looma kala harin bulshada reer Cerigabo waxay moodaa inay foolanayeen yani soo dhaweynta madaxweynaha oo caawa nabad ku seexanayaan marka taasi waxay ka turjumaysaa nabadda magaalada Cerigabo iyo sida bulshadaasi ay u dareentay nabadgelyo darrada iyo sida ay u hagaaseen ay magaalada qeyrkooda uga hadheen gobolada galbeedka kale uga hadheen sidoo kale safarka waxa qurxiyo kamid ah ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi oo markii ugu horeysay Soomaaliland yimaado ay tahay markii ugu horeysay gobolada bari tago isagoo nabad u tagay oo la warbal qoriga dhigoo nabad qaata tan oo ka turjumaysa yani in bulshadu Soomaaliland ay u soo wadeejistay bal in xagga nabadda loo soo wadeejiso oo goboladii bariga xaaladaha ka taagnaan jireen in bal la mideeyo marka kullay wixii warre soo kordho waynu wada socon doonaa laakiin yani xogaa u dambeeyay la helayaa in xaaladdu ay waqtiga sugan tahay in bulshadii la wada doonay guusha ku wada fariisataana ay timid barasaabka gobolka Sanaag oo maanta warbaahinta qaranka la hadlayay wuxuu yiri gogasha waxa loo dhigay 8 beelood waaweyn marka beel baan iman buur beesha soo ka dhigan yani beesha qayb ahaan degta gobolkaasi ama gobolada soo loo yaqaan ama dhul bahante kuwaas oo iyagu meesha iman laakiin bulshada Soomaaliland xariirta runtii aad bay soo dhaweeyeen safarka madaxweynaha waxay ku tilmaameen inuu yahay safar taariikhi ah madaxweynaha runtii gogasha maanta la furayo maanta oo dhan madaxdii hadlaysay wasiirada salaadiintii madax dhaqameed madaxweynuhu berri inuu hadlo oo la fadhiisto oo isagu ma garanaysa qof kasta tabashadiisa dhageysto ayaa runtii halkaasi u tagay madaxweynaha Soomaaliland markuu magaalada Cerigabo ka digano gocad oo runtii kii nabad ah buu qaatay taasoo ka turjumaysa yani inuu madaxweynuhu nabad u socdo oo aanu yani dhibaato dhacdaynaan waqtigan xukuumaddiisu diyaar u hayn marka xubno kamid ah dadkii soo dhaweynayay ama goboladan hadlay wax sheegeen nimanka tusaale
waxaan arkayay maamulka khaatuma la yiraahdo xagga laga dhisay bariga soon mid kamid wasiiradiisa aad u soo dhaweeyay Puntland nafteedu way soo dhaweysay nabadda cid kasta waa wadan qof aanay dan u haynin soo dhaweynin ma jiro marka bal war wixii soo kordha waynu wadaagi doona halkan ku wadaagi doona muuqaalkana fogay hadii rabbi yiraahdo